السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا دمام وسلامتهن ولا لها قيمة يقدر أنت مضان داونا فيلم كان وحرى وحيار إن الكشف سيسكو باكت ريسا هدو الله أود الأكرا المغضب أنيقو اسكو حالي دوانو وحيار أيان كبلاويا لكن وحان صور لي دونا أشارو تحنيال هدو ربي كرا المغضب waxaan caawa bilaabayaa in aan isku xirno oo keliya laba combyuter iyo maxaa la yihahdaa hal router. kooda hore routerka ayaan diyaarsanaynaa. routerkeena halkaas ayaan dhiganay. kadib waxaan qaadanaynaa labada combyuter toodiyaan qaadanaynaa. kadib waxaan rajaynayaa hadda waxaan doonayaa in aan configuration ku sameeyo labadan. waxaan sidoo kale diyaarsanaynaa IP-yadaan sii lahayn. okay 192.168.eber geeskan qaybtan xaafadan waxay qaadanaysaa ebertaas. qaybta kale waxaan ka dhigaynaa 192.168.1 okay waxaan qaadanaynaa keebalada halkee laga doortaa, halkan ayaa laga doortaa. kooda hore waa ku dhufanaysaa. waa kuwaana keebaladii ayagoo tiro badan midba nuuc waayo waa isticmaali doonaa biidni illaahi tacaalaa. mid waxbaa loo isticmaalaa gooni ah. hadda laakiin waxayna quseyso waa cross over ayaan qaadanaynaa oo midaan ah. waatanaa hoos ayay ku qoran tahay haddii aada u diyaarsataan cross over midaas ayaan qaadanaynaa. waxaan qaadanaynaa fast zero. waxaan ku xiraynaa fast zero kale ayaan soo qabsanaynaa fast 01 fast 0 ayaan halkaana ku xiraynaa. waxaan rabnaa markii aan isku xirno oo aan IP addressyada siino inuu midkaan arki karo kanna uu kan arki karo ayagoo dhex maraayo routerkan. marka waxaan ku bilaabaynaa routerka inaan kooda hore asaga IP addressyada gelino. halkan ayaan geysanaynaa si aan u wada aragno. hadda waxauna yidhi ma rabtaa in aad mid cusub samaysatid mase midkaaga hore. waxaan leenahay mid cusub ayaan rabnaa oo no. okay mar labaad ayaan enter eri n ayaan qorayaa. tab ayaan leeyahay enable waa marka aad kala rabtid kooda hore configurationka intaadan sameynin ka hor enter ayaan leeyahay. waxa ugu horeeya aan rabna inaan sameyno waxay tahay router meesha ku qoran inaan magaca kusoo bedelno. tab ayaan iri si ayaan taabanayaa si oo terminal haddana igu soo baxo tab terminal enter ayaan leeyahay. kadib waxaan qorayaa host name. kadib waxaan rabaa inaan magaca bedelo routerka meeshaan routerka ku qoran tahay. waxaan rabnaa insha allah inay ku qoranto in aan ku bedelno daryeel. way bedelantay. haddaad halkan waxay ahayd router laakiin waxaan ku bedelnay daryeel oo halkan nooga muuqato. waxaan rabnaa inaan u sameyno secure markii qofka soo gelayo si uusan isla markiiba gudaha usoo gelin. waxaan leenahay enable secret class ayaan ka dhigaynaa enter. markaas kadib waxaan bilaabaynaa inaan IP addressyada siino. haddaad tiraahdo waa interface ayaa laga soo gaabiyey. haddaa qortid fast internet waxaan rabnaa inaan kooda hore sameyno 0/0 waa halkee 0/0 aan ka soo baxna hal mar aan soo laabana. halkan kale kusiin falaar ayaan ku saar waa ujeedaa waxaa loo soo gaabiyey fast internet 00 waa meeshaas. IP addresskan ayaan meesha hadda siinayna. okay enter ayaan leenahay. IP address ayaa laga soo 192.168.1 sab markii wuxuu noqonayaa 255.255.255. waxaan ku jirnaa annaga no shutdown ayaan leenahay. waxaan ku jirnaa maxaa la yidhaahdaa class C
exit ayaan hal mar dhahaynaa kadib waxaan qoraynaa interface int fast 0/1 ilaan kii kale oo 00 ahay waa kana waa midkaan inoo shidnay isla markiiba inta ib ayaan leenahay ib address 192.168 area hal 255.255 eber ayaan leenahay inta no shutdown labadaba waa shidnay laakiin wax isgaarayo ma laha midkaan haddaan midkan inuu gaaro aan ku dayo ma gaari karo kooda hore ayaga ayaa u baahan in aan siiyo ib midkaan ibgiisaan siinaynaa waana ka dhigaynaa cafwan dhibicdii ayaan ka tegay dhibic aan soo koobiyastay kanaan imid ibgiisi aan u kala garo labo ayaan siinay kanna halkan ayaan tegaynaa ka dhig laakiin meeshaan 1 ayaan ka dhigaynaa meeshaan waxaan ka dhigaynaa 1 waa routerka wixii midkaan ibgaan uu leeyahay ayaan soo siinaynaa sidee loo siinaya computerka saasaan leenahay isagana desktop halkaasaan ku qoraynaa laakiin already inta ayaan kasoo koobiyastay sidaa ujeeday submaskiga waa iskugu mid dhibic ayaa iga gashay alaala waxyar gadway hadda ma gelinayo leanna waxaan rabaa inaan idin tuso gadway la-aan inuusan routerka dhex mari karin kana ibgaan soo siinaynaa isagana sidoo kale hal ayaan meeshaas ka dhigaynaa okay waa iska xiraynaa waxaan sameynaynaa bink inoo binki garay karaan ku firaynana 192.168 hal dhibic hal wuu gaaray reply haddaad meel aragtid wuu gaaray laakiin kan ayuu gaaray halkaas oo 01 kaas aan ku baroobeynayna marka halkaana waxaan ku bedelaynaa 0 ma gaari kariyaa time out oo halkaas kusoo qoraya lianna maxaa yeelay ma hayo gadway oo ku dhex maro time out kale hadduu keeno waxaa weeye macnaheedu ma dhex mari kara mid kale laba mar saddexda ayuu kusoo celinayaa time out okay kan iga xad marka waxaan ku laabanaynaa halkan gadwayna siinaya halkaas ayaan halka siinaya ilaan gadwaygiis waa kana rag haddayaan bink soo sameynaya reply hore ka leeyahay rag reply wuu keenay okay back meeshaan waxaan ka dhigayaa 0 okay afwan 2 ma gaari kariyo miya marka time out midkan wuu gaari la-yahay mar labaadka inuu isku dayaan rajeyneynaa haddii kan time out labo ma gaari kari maxaa yeelay kanna waa inaan gadweygi soo siinaa isagana kana gadweyga ka maqnoo ujeedin soo gadweyga aan siinayn wuxuu noqonayaa lambarka halkan ku qoran 01 markaas ah hadda kanaan ku laabanaynaa waxaan soo sameynaynaa link haddaata uu gaari waayo sama waa ujeedin waa kana time outka uu haddaata soo qoray hadda isla asagian kula celin reply oo uu gaari okay kanna kan ma gaari kariyaa waaye waxaan ku qoraynaa in 192.168.1 wuu gaara isagan reply inta waxaa noogu qoran fiiri waxaa backet waxaa la diray meeshaan 4 wax oo waxaa la helay 4 wax oo wax lumayna ma jiro waa eber waa kaas si kale waa lagu tijaabin karaa oo looda arkaayo
halkan ayaan u seejinayaa waxyar dulqaata. halkan ayaan u seejinay simulation ayaan sameynaynaa. weli waa marka inaan ku degdegnay IBM checkmaster back folderkan inta ka jir ayaan leeyahay halkaasa tago capture oo ujeedin way socotaa. halkan in progress ay ku qoran hadhow marka uu dhameeyo oo dib ay usoo laabato xanshidaas waxaa rabaa inay soo qoranto success ha lagu guuleysto destinationka iyo meesha laga diray iyo meesha ay gaarto waa kana waa kaasa fariinta aan u dirno qofkan way gaartay bal asaga fariin ma noo soo diri karaa si annaga intuusa u timaado waan tijaabinaynaa. fariina halkan kasoo diraynaa halkaana imaanaysaa capture fariintii waa tanaa emaila qofka u dirtay dhag isla marka waa kana waa kaa waa sida uu u shaqeeyo aaladda internetka iyo combyuutarada siday wax iskugu diraan oo midba mid kale u dhex maro. marka casharadeena waxaan ka bilaabanaa wax yaro easya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. دمام وسلامتهن ولا لها قيمة يقدر أنت مضان داونا في كان وحرا وحيار إن نكشف سيسكو باكت ريسا هذا والله أود الإكرام النقضة أنا أقول أسكو حالي دوانا وحيار أيان كبلاويا لكن وحان صور دي دوانا أشياء تحنيال هدو ربي كرالي نقضة. waxaan caawa bilaabayaa in aan isku xirno oo keliya laba combyuutar iyo maxaa la yihahdaa hal router. kooda hore routerka ayaan diyaarsanaynaa. routerkeena halkaas ayaan dhiganay. kadib waxaan sameyneynaa waxaan qaadanaynaa labada combyuutar koodiyaan qaadanaynaa. kadib waxaan rajeynayaa hadda waxaan doonayaa in aan configuration ku sameeyo labadan. waxaan sidoo kale diyaarsanaynaa IP-yadaan say lahayn. okay 192.168.eber geedkan qaybtan xaafadan waxay qaadanaysaa eber qaybta kale waxaan ka dhigaynaa 192.168.1.eber. okay waxaan qaadanaynaa keebalada halkee laga doortaa halkan ayaa laga doortaa kuda hore waa ku dhufanaysaa waa kuwaana keebaladii ayagoo tiro badan midba nuuc waayo isticmaali doonaa biidni illaahi tacaala mido waxbaa loo isticmaalaa gooni ah hadda laakiin waxaana quseyso waa cross over ayaan qaadanaynaa oo midaan ah waatanaa hoos ayay ku qoran tahay haddii aada u diyaarsataan cross over midaas ayaan qaadanaynaa. waxaan qaadanaynaa fast zero waxaan ku xiraynaa fast zero kale ayaan soo codsanaynaa fast 01 fast 0 ayaan halkaan ku xiraynaa. waxaan rabnaa markii aan isku xirno oo aan IP addressyada siino inuu midkaan arki karo kanna uu kan arki karo ayagoo dhex maraayo routerkan. marka waxaan ku bilaabaynaa routerka inaan kooda hore asaga IP addressyada gelino. halkaan ayaan geysanaynaa si aan u wada aragno. hadda wuxuuna yidhi ma rabtaa in aad mid cusub samaysatid mase midkaaga hore waxaan leenahay mid cusub ayaan rabnaa oo no. okay mar labaad ayaan enter eri n ayaan qorayaa tab ayaan leeyahay enable waa marka aad kala rabtid kooda hore configurationka intaadan sameynin ka hor enter ayaan leeyahay. waxa ugu horeeya aan rabnay inaan sameyno waxay tahay router meesha ku qoran inaan magaca kusoo bedelno. tab ayaan iri t ayaan taabanayaa si oo terminal haddana igu soo maro tab terminal enter ayaan leeyahay. kadib waxaan qorayaa host name kadib waxaan rabaa inaan magaca bedel routerka meesha meeshaan routerka ku qoran tahay waxaan rabnaa insha allah inay ku qoranto in aan ku bedelno daryeel. way bedelantay haddaad halkan waxay ahayd router laakiin waxaan ku bedelnay daryeel oo halkan nooga muuqato. waxaan rabnaa inaan u sameyno security markii qofka soo gelayo si uusan isla markiiba gudaha usoo gelin
waxaan leenahay enable secret class ayaan ka dhigaynaa enter. markaas kadib waxaan bilaabaynaa inaan id addressyada siino. int haddaad tiraahdo waa interface ayaa laga soo gaabiyey. haddaa qortid fast internet waa waxaan rabnaa inaan kooda hore sameyno 0/0 waa halkee 0/0 aan kasoo baxna hal mar aan soo laabana halkan kala kusii falaar ayaan ku saar waa ujeedaa waxaa loo soo gaabiyey fast internet 00 waa meeshaas ib addresskan ayaan meesha hadda siinaynaa. okay enter ayaan leenahay ib address ayaa laga soo 192.168.1 sab markii wuxuu noqonayaa 255.255.255. waxaan ku jirnaa annaga no shutdown ayaan leenahay. waxaan ku jirnaa maxaa la yidhaahdaa class c exit ayaan hal mar dhahaynaa. kadib waxaan qoraynaa interface int fast 0/1 ilaan kii kale oo 00 ahay waa kana waa midkaan inoo shidmay isla markiiba. enter ib ayaan leenahay ib address 192.168.1 eber ayaan leenahay. enter no shutdown labadaba waa shidmeen laakiin wax isgaarayo ma laha. midkan inuu gaaro aan ku dayo ma gaari karo. kooda hore ayaga ayaa u baahan in aan siiyo ib. midkan ibgiisaan siinayna wanaan ka dhigaynaa. cafwan dhibicdi ayaan ka tegay dhibic aan soo koobiyeystay kanaan imid ibgiisa si aan u kala garo 2 ayaan siinay kanna halkan ayaan tegaynaa soo ka dhig laakiin meeshaan 1 ayaan ka dhigaynaa. meeshaan waxaan ka dhigaynaa 1 waa routerka maxaa midkan id-gan uu leeyahay ayaan soo siinaynaa. sidee loo siinaya computerka saasaan leenahay isagana desktop halkaasaan ku qoraynaa laakiin already inta ayaan kasoo koobiyestay sidaa ujeeday submaskiga waa iskugu mid dhinac ayaa aga gashay laalaaban waxyar gadway hadda ma gelinayo leanna waxaan rabaa inaan idin tuso gadway la-aan inuusan routerka dhex mari karin. kana ib-gan soo siinaynaa isagana sidoo kale hal ayaan meeshaas ka dhigaynaa. okay waa iska xiraynaa. waxaan sameynaynaa pink binka gareykanaan ku sameynayna 192.168.1 wuu gaaray. ribalaay haddaad meel aragtid uu gaaray laakiin kan ayuu gaaray. halkaas oo 01 kaas aan ku baraabeynayna. marka halkana waxaan ku bedelaynaa 0 ma gaari kariyaa time out oo halkaas kusoo qoraya lianna maxaa yeelay ma hayo gadway oo ku dhex maro. time out kale hadduu keeno waxaa weeye macnaheedu ma dhex mari karo mid kale 2 mar mar saddexda ayuu kusoo celinayaa time out. okay kan iga xad marka waxaan ku laabananaa halkan gadwayga siinaya. halkaas ayaan halka siinaya ilaan gadwaygiis waa kana rag hadda ayaan bink soo sameynaya. ribalaay hore ka leeyahay rag ribalaay wuu keenay. okay rag meeshaan waxaan ka dhigayaa 0 okay afwan 2 ma gaari kariyo miyaa marka time out
midkan wuu gaari la-yahay mar labaadka inuu isku dayan rajeyneynaa haddii kan time out labo ma gaari karin maxaa yeelay kanna waa inaan gadweygi soo siinaa isagana kanna gadweyga ka maqan ooma jeedin soo gadweyga aan siinayn wuxuu noqonayaa lambarka halkan ku qoran 01 markaasa hadda kanaan ku laabanaynaa waxaan soo sameyneynaa binti haddaata uu gaari waayo sama waa ujeedin waa kana time outka uu haddaata soo qoray hadda isla asagian kula celin si balaay oo uu gaaro okay kanna kan ma gaari kariyaa waaye waxaan ku qoraynaa bint 192.168.2 wuu gaara sen rebalay inta waxaa noogu qoran fiiri waxaa backet waxaa la diray meeshaan 4 wax oo waxaa la helay 4 wax oo wax lumayna ma jiro waa cibir waa kaas si kale waa lagu tijaabin karaa oo looda arkaayo halkan ayaan usajinayaa wax yar dulqaata halkan ayaan usakinay simulation ayaan sameyneynaa walow aan marka inaan ku degdegnay IBM checknasa back folderkan inta ka dirayaan le halkaasa tago kabjar waa ujeedin way socotaa halkan in progress aa ku qoran hadhow marka uu dhameeyo oo dib ay usoo laabato xansidaas waxaa rabaa inay soo qoranto success waa lagu guuleysto destinationka iyo meesha laga diray iyo meesha ay gaarto waa kana waa kaasa fariintii aan u dirno qofkan way gaartay bal asaga fariin ma noo soo diri karaa si anagoo intusoo u timaado waan tijaabineynaa fariina halkan kasoo diraynaa halkana imaaneysaa kabjar fariintii waa tanaa emaila qofka u dirtay dhag isla marka waa kana waa kaas waa sida uu u shaqeeyo aaladda internetka iyo combyuutarada siday wax iskugu diraan oo midba mid kale u dhex maro marka casharadeena waxaan ka bilaabanaa wax yaroo easya waxaana qaadan doonaa kuwa intaan kasii badan hadduu allaha awoodda le karaal noqdo intaas iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu